نحن inoo socon doonaa 3 maalmood. kolley iniga warrami maayo naadiga Somali Speaking Pen waxaa la abuuray 1996 magaalada London ee dalka Ingiriiska. asaasihiisiina maanta uu nala joogaa dr. Afrax. waqtigaa dabadeed xaruntiisii dhexe waxaa laga dhigay oo loo soo guuriyey Djibouti. intii uu Djibouti ay ahayd xaruntiisa dhexe waxyaalo fara badan baa u qabsoomay. wixii u qabsoomay waxaa ka mid ah toddobaadkii bahda hal abuurka dhaqanka oo dhacay 2003, toddobaadkii afku hooyo 2006, kulankii weynaa ee xuska sanad guurihii 4aad ee qoraalka afka Soomaaliga 2012, iyo ololayaashii xuska maalinta afka hooyo. hase yeeshee sanadadii u dambeeyay waxaa la moodayay in dhaqdhaqaaqii iyo hawlihii naadiga Somali Pen uu hakad ku dhacay, hoos u dhac ay gaabaabsi noqotay hadal hayntiisii iyo maqalkiisii. shirweynahan 6aad oo qorshaysneed inuu dhaco 2014 wuxuu dib u dhacay 4 sano iyo dheeraad. nasiib wanaag odayadii naadiga waxay qaateen inay qabanqaabiyaan shirweynahan iyaga oo garab iyo gargaar weyn ka helaya madaxweynaha dalka mudane Ismaaciil Cumar Geelle. shirweynahan waxaa ka soo qayb galay xubno wadano kala gaara ka yimiday xubnihii naadiga, hadday tahay xubnihii dalkan Djibouti ee martida loo yahay, Ethiopia, Soomaaliya, Puntland, Somaliland, Kenya, Sweden, Ingiriiska iyo Mareykanka. waxyaalaha haddaba laga filayo ama natiijooyinka laga sugayo shirweynahan waxa ay tahay in naadigan nolol cusub la gelin karo, in la abuuro oo dib loo soo ambaqaado oo la asaaso hay-adihii hoggaanka howlaha naadiga, in dardar cusub lagu geliyo howlihii naadiga, iyo in kulamadii uu qaban jiray uu dib u ambaqaado. kolley rajo weyn baan ka filaynaa oon ka sugaynaa shirkan.